maanta oo maalin axad taariikhduna ku beegan tahay 18 January sanada 2026 ujeedada kala dirid garsoorayaasha gobolka Baay ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne 137 kuna saabsan kala dirid garsoorayaasha gobolka Baay ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaren markuu arkay dastuurka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa kontonaad farqadiisa 11aad iyo qodobkiisa 69aad farqadiisa 8aad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kuna saabsan codsi kala dirid garsoorayaasha iyo xeer ilaalinta gobolka Baay ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay habacsanaanta ka jirta howlaha adeegga garsoorka gobolka Baay wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad kala dirid laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 18 January sanada 2026 madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaren oo ah madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu kala diray dhammaan garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad iyo labaad ee gobolka Baay ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka labaad wuxuu dhaqan noqon doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaren sida halkan ku xusan madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed oo u saxiixay wabillahi tawfiiq.